kulanti wanaagsan ku soo dhawaada mid ka mid ah sheekooyinkeena tixanaha inoo ahaa oo aynu kaga hadli jirnay dhaqanka Soomaalida maantana waxaynu ka hadlaynaa geela iyo Soomaalidu sida mararkii hore ay u adeegsan jirtay geelu waa xoolaha ay Soomaalidu caanka ku tahay waa noole adkaysi u leh gaajada iyo haraadka sidka geela waxaa lagu sheegaa 12 bilood ama 365 maalmood neefka dhadiga ah ee geela waxaa loo yaqaanaa halka neefka labka ah ama ragga ahna loo yaqaano awr ama rati neefka yar ee labi waa nirig tan dhidigana waa qurbac geela waxaa dhalay ama waxaa loo yaqaanaa ramad geela markii uu wax dhalo awrka qooqan waxaa loo yaqaanaa baarqab awrka duufaanka ahna koron hadaba waxaynu idinku soo gudbinaynaa sheekadan geela Soomaalidu sidii ay markii hore u adeegsan jirtay waxaa la sheegaa in geela uu ahaa xoolaha ama neefka kaliya ee geela ah in uu qof rag ah u dhiman karay asaga oo difaacanayo Soomaaliduna waxay ahayd dad qabiilo u degan geela ayaa qabiiladu iska dhici jireen ayaga oo duulaanku uu ka bilaabo jiray geel la kala qaatay ama godob ka kacday gabar oo markaa rag kale oo qabiil kale ka soo jeeda ay ku xadgudbeen tan iyo sheekadan teeda kale intaan ku kulmi doono saaxiibayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo inagu xirnaada mahadsanidin muuqaalkaana share gareey